السلام عليكم رير يوتيوب وإذن السلام maanta meeshan waxaan ku sameysana qaliyat naxl insha Allah waxay ka koobnaa doontaa waraanga meesha isku haystaa inta waxa igu jira farkoobo bur masha Allah inta waxa igu jiro half oo saliid cadii inta waxa igu jiro baking powder faniilada weelkeeda laakiin baking meesha waa ku shubtay inta waxa igu jiro qamiirisa qaando heela inta igu jiro iyo cusbo yar laba koob oo caano sisin iyo maxallaha ukun ay ka samaysan tahay dhaxda waxay ka gali doonaa shukulaatada u jeedin insha Allah waa jarjaraya jab yar ka dhigaya dhaxda ka galgelinaya ma fahanteen marka waa kaas soo dhawaada baaquligan waxaan ku shubanayaa bakeeri caano ayaan ku shubtay waxaan kaloo ku shubayaa leebtada halka qaando ahayd waxa kale ku daraa sokor 4 qaando waa ka yareysan kartaa ama waa ka badsan kartaa joyska iskala sokorta marka intaana isku walaaqaya waa meel aan dhiganaya waxaan rabaa muddo 5 daqiiqo ama 4 daqiiqo camal inay xoogaa yar isdhex gasho saasa fiican inta isku shubi lahayd ku inay leebtada iyo caanaha si fiican isku dhex galaan meesha waxaan ku haysanaa burka waxaan ku shubaa insha Allah leebito aan heelki tunaaya ku shubaya cusbada ku daraya igu qaata waa ku cusba YouTube video ugu horeeyo sameeynayo waaye asxaabteed soo dhaweeya waraangada ku shubaa 2 qaando waraanga ku shubaa hadii Ilaahay dhaho maxaa dhahay marka si fiican ila socdo burkan aad u fududay qof walba sameey karo masha Allah waxa ku daraya qaando oo maxaa dhahay baking powder caagaanito caaga faniilada ku qoran oo ku maata laakiin ani bur maxaa dhahay baking-ka waxa ugu maada baakad marka waxaas intuu ka daada lahaa wiilkana faniilo iga dhamaatay sidaas ugu shubtay saas oo ogaado waa baking waxaas aan ku shubay inta caanaha ku soo shubtay half bakeeri caanaha ku soo shubtay waxa ku shubay saliid ku daray insha Allah waxa ku dari doonaa xabad ukun raal ahaada gacan mobilka lagu hayo gacan waxa lagu jibinayo ukunta macala in lagu jibsho oo lagu shubo la rabo ma fahanteen marka kaasa ukunti caanihi iyo meesha waxa isugu dar saliid cadeedi caanaha bakeerina waxay noogu qasantahay leebtada bakeerina halfkiisna hadda ku shubo marka waxa kaaga soo baxay bakeeri half oo caano insha Allah isdhex gelinayna saani ku fiican tahay hal mar hadaa dhahdo burkii wixii dhan oo isku korshuba wax dhan oo isku qarbuda xoogaa waa laga fiican yahay marka waxa sameeyay intaan waa isku qasi inta qalaalka ahayna waa isku soo daray insha Allah hadda burkan ku darayaa waa soo xashaya meesha dhulka inta dhigta si sharaf leh soo xashaa ku dhahay bur sidiisa waxa xashitaanka dukaaga toosa alxamdulillah ma sha Allah ay ku noqona marka waa kaasa burkii soo qasay oo soo rifaaqay waxa awood loo soo sheegtay ma fahanteen marka waa kaasa insha Allah qeybihi dambe galina marka ila socdo si fiican ila socdo waa dabool meel aan dhiganaya 10 daqiiqo camal meel yaale 20 daqiiqo camal meel yaale marka waxa sameeynaa shukulaatada soo baxsanayna waa jarjaraynaa shukulaato kaliya ma inay ku sameeysto qaliyada naxliga waxa lagu sameeyaa waxyaabo badan oo loo isticmaalaa burka waxa dhax gashan kartaa iyo sheega hilib shiidan waxa dhax gashan kartaa qudaar sameysatay waxa dhax gashan kartaa cheese ama jubno ama farmaajo saa u taqaanid inta waa gashan kartaa ma fahanteen marka ana maanta shukulaatada ku sameeyay aan macaan kor uga darsanay shukulaatada Italy iyadoo ku sameystay marka insha Allah dhowr nooc oo ka sameysay inta nooc yahay oo ka sameysay waa idin soo sameeynaa insha Allah waa idin soo gali doona idhiiri galiya soo dhaweeya saxanka saliida soo marsana marka burkeena waa kana saan ku soo baxay 20 daqiiqo bacdi alxamdulillah adi inta arabtid waa dhaafa kartaa heer kulkan way ku xirantaa duu qabow zaaid oo meesha aad joogto ay tahay yaani muddo ka qaadana wax yar xoogaa yar hadu meesha xoogaa jawiga isku kuliyahana waa ciyoob ku soo faxa waa dareemi kartaa adigaba marka burka markuu soo fuurane sidiisa u soo fuursan waliga maxay ahayd horaha ka sameynin waxa sameeyay isdhex gali burka ka bi intii oo xajmiga soo kor ka baabi yani isdhex gal si fiican isku dhex gal marka si fiican isku dhex gasho bacd hoosha ka qabsan rabta ka qabsada duub rabta dala laab rabta fid rabtaybo marka ma sha Allah waa kasaas u soo yareena waxa ka dhigayaa couscous isla eg
oo yacni insha allah intuu gacan biniaadana sameynayso waxuma isla ekeysiin karta alxamdulilah, laakiin waxaa waaye waa dadaalaa ma fahanteen intii oo tabarteeda ah inaan isla ekeysiiyo aan ku dadaala insha allah. Marka isoo dhaweeya waxyaabo badan aa iga faa'iidi doontiin insha allah, waa idinla wadaagi doonaa. sidaas aan usoo yareena insha allah isla soo ekeysiinaad ilaahay dhaho. Shukulaatada soo qaatay shukulaatada waxaa rabaa jab ina dhexda uga geliyo insha allah. waxaas madowna isdhihina maxaa waaye ma aha wax wasaq waa kaas waa ka fujiye, waxaa waaye heelka waaye. ani badanaa ma jecli waxyaabaha oo maxay carfisooyinka carfisada maaragtay faniilada badana ashma isku nihin, marka mar waa isticmaalaa laakiin heelka u badanaa heelkaas aad u jeclahay inaa doolshada rootiyaasha waxyaabahaas carfiska rabo dhan heelkiina u isticmaalaa jeclahay. marka maasha allah shukulaatada dhexda gelina teeda kale waxaa ku dadaashin daboolkaas aad daboolooyo inaa si fiican mees u daboolto, laana waxaan shukulaato waaye shukulaatadana markay dab aragto way dhalaalaysaa ma fahanteen. markay dhalaasho marka lama rabo inuu rootiga kasoo diiqto banaanka usoo baxdo, marka saas darteed ku adkeeyo caano yar iyo ukunta mid qaybteeda oo gaduudan isku daray insha allah. waa isku qasaa korka ka marina, korka markaa ka mari daboolka saara insha allah meel aan dhigaa. waxaa waaye iyadana muddo yacni sugtid waa 10 daqiiqo 15 daqiiqo inuu burka isla soo laala ekaado. markuu isla la ekaado yacni xoogaa uu kor usoo kaco markaas ayaa waxay ahaday foornada gashan doonaa insha allah. geesaa dhigana had insha allah waxaa ku darayaa isheeg sisinta hadda ku daraa insha allah. sisintan kaligeed waa ku dari kartaa iyada iyo waa ku dari kartaa iyo xabad soodada mahraxeeda miraha ah waa ku dari kartaa. haddaa rabto oo haysan waa iska dhaafi kartaa, haddaan jeclayn dada laga yaabaa jiro inaysan jeclayn waa iska dhaafi kartaa. haddaa rabto waxaa ku samaysan kartaa xabad soodo kaligeed ayaa ku samaysan kartaa. qof walba suu jecel yahay yacni waxaan waajib ma aha inaa ku darto sisin, waa iska dhaafi kartaa. foornada 170 aan geeyay qaybta hoose bisa u daaray, qaybta kore waxaa rabaa markay hoos xoogaa kasoo bislaato oo darbka si fiican oo hoos usoo karo inaa maxay ahaday qaybta kore daaro. inta badan waxaa sameeya ani daawo wax foorno gelinayo qaybta hoose inta badan ka daaraa kabacdina qaybta kore ugu dambeyntii ka daaraa. haduu ilaahay raa marka waa kaasaa hoosa kasoo daara insha allah. 170 waa ujeedin hadda soo isu keenay oo maxay ahaday usoo fuuray qaybta kore hadda u daara marka insha allah wax yar ka bacdina waa kasoo bixin haduu ilaahay raado. waa kaasaas uu noogu soo bax burkeena ujeedin quruxda badan leh. marka alxamdulilah in la cuno bisu diyaar u yahay. soo dhaweeya asxaabteeda youtube waa markii ugu horeysa video aad duubo oo jarjaro oo maxay ahaday haddana aan youtube soo geliyo soo dhiirigeliya idinka maxay ahaday hore i wadi kartiin subscribe igu dadaala iyo share sida dad badan u gaaro walaalihiina uga faa'iideystaan anna maxay ahaday uga faa'iideysto. marka waa kaasa laba xabba soo qaadanaa meeshan saarana insha allah. caanaha ku darsanaa caanahaneetini caana macaan waaye condensed milk aa la dhahaa. marka caanahan insha allah waxaa idiin soo geli doonaa si aa uga maarantid inaadan supermarket ka doonin. alaabta isticmaal dhaho wax alaab guriga laga helo waaye, caanahan kaliya ayaa raba in supermarket laga doono. soo caanaha insha allah guriga kusoo anoo sameynaa idiin soo gelinaa si aa uga maarantiin wax walbana aa gurigaaga inti taala aa uga qabsato. waa un caano iyo sokor inta laga sameynayo. marka insha allah anaa idiin soo gelinayo waa maxay ahaday waa ka faa'iideysan doontiin insha allah. oo ku dadaala qaybta dhamiska anaa nii qaabilsan. waa kaasaa hee masha allah suu kusoo baxa walaa qof cuna bisa ka sheekay karo hoos iyo kor bisa ujeediin oo kaya. aad aa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caafimaad iyo barwaaqo igu cuna.